dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gacar Media TV. dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gacar Media TV. dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena walaaba barnaamijka wixii cusub ee Gacar Media TV wararka waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha siyaasadda, teknoolojiyadda, dhaqaalaha, caafimaadka, arrimaha bulshada iyo wax la mid ah. haddaba dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan intaanan u guda gelin warbixinteena oo dhammaystiran, fadlan subscribe, like, share iyo follow page-ka iyo channelka Gacar Media TV aan ku kalnay Facebook iyo YouTube-ka. waa mahadsantiin. aan ku bilowno. maantana waxaan kusoo qaadan doonaa doorashada Ruushka iyo 3 musharax ee la tartami doonto madaxweyne Putin. kusoo dhawaada. waxaan kusoo qaadan doonaa doorashada dalka Ruushka ka socota, gaar ahaan doorashada madaxweynimo iyo ragga kula tartamaya Putin. doorashada madaxweynimo ee Ruushka ayaa bilaabatay maalintii Jimcada ee taariikhdu ahayd 15 Maarch 2024. waxaa la sheegay doorashadan madaxweynimo ee Ruushka inay socon doonto 3 beri, 15 Maarch ilaa 17 Maarch ee sanadkan 2024. haddaba waa kuwii musharaxiinta Putin kula tartamayo doorashada madaxweynenimo. kala hore toddobaadkan golaha dhexe ee doorashooyinka dalka Ruushka ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen 3 musharax oo madaxweyne Putin kula tartamayso doorashada madaxweynenimo ee dalka Ruushka. haddaba 3 musharax waxay kala yihiin: 1 Vladimir Dabankov, 2 Leonid Slutsky, 3 Nikolai Korytonov. haddaba faahfaahin aan ka bixino taariikh nololeedka 3 musharax. 1 Nikolai Korytonov waxaa loo yaqaanaa Korytonovkii mar labaad soo noqday. waa xubin ka mid ah baarlamaanka Ruushka Duma, ahna xubin xisbiga shuuciga ee ka midka ah xisbiyada saaxiibka la ah aqalka Kremlinka ama madaxtooyada Ruushka. haddaba Nikolai Korytonov oo ah 75 jir ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxweynimo ee 2004 ka dhacday dalka Ruushka, taasoo uu kula tartamayay madaxweyne Putin. musharax labaadna wuxuu yahay Leonid Slutsky. Slutsky waxaa la sheegaa inuu yahay khabiir ahna gudoomiyaha xisbiga Liberal Democratic ama Russian Liberal Democratic Party. Slutsky oo ah 56 sano jir ayaa ah xubin ka mid ah baarlamaanka Ruushka Duma, ahna shir gudoomiyaha guddiga xiriirka caalamiga. Leonid Slutsky waa khabiir ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha, haystana shahaadada PhD-da. sidoo kale Slutsky waa gudoomiyaha sanduuqa nabadda ee dalka Ruushka. waxaa la sheegay Slutsky inuu shaqooyin fara badan ka soo qabtay dalalka Yurub, isagoo hirgelinayay hadafka dowladdiisa Ruushka. musharaxa saddexaadna wuxuu yahay Vladimir Dabankov. waa ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ama Duma, waana xubin ka mid ah xisbiga dadka cusub ee Ruushka ama New People's Party. Dabankov waxa uu ku dhashay magaalada Smolensk, gobolada Donetsk iyo Luhansk ee Ukraine laga qabsaday sidii loo aqoonsan lahaa islamarkaasina loogu soo dari lahaa dhulweynaha Ruushka. ayuu Dabankov kaalin weyn ka qaatay, isagoo sameeyey olole saameyn leh ka dhex sameeyey gudaha baarlamaanka Ruushka. haddaba warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 3dani musharax yihiin kuwa ay taageersan yihiin ama taageersan aqalka Kremlinka ama madaxtooyada Ruushka. tusaale ahaan, sanadkii 2020 dagaalkii Putin uu ku qaaday Ukraine si buuxda ayay u taageereen. doorashadan ayaa go'aamin doonta hogaamiyaha 6 sano ee soo socota ee dalka Ruushka maamulaya. sanadka 2020 dastuurka dalka Ruushka markii isbeddel lagu sameeyey kadib ayay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay ee madaxweynenimo, taasoo madaxweynaha musharaxa ku guuleysta ay noqonayso 6 sano. waxaa la saadaalinayaa 70% madaxweynaha hadda xilka haya ee Vladimir Putin inuu ku guuleysan doono. dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inooga eg barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gacar Media TV. barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmi doono nabaddiino.